سلبان إبراهيم محمود أو كم السياسيين تكسر كذا قبل كتقدير أو ما تصير ولا هذه تلفزيون كعالمي سوم نيوز ayaa waxa uu ka hadlay shirka labadii cishe u dambeeyay ka socday magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti ee u socday Somaliland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu siyaasigu uu sheegay inaanay xilligan suurtagal ahayn in dawladda Djibouti ay wada hadal u qabato Somaliland iyo Soomaaliya waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxaana uu siyaasigu intaasi u raaciyay in madaxweynaha dawladda Djibouti uu dana gaar ah ka leeyahay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya siyaasiga oo arrimahaasi ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisii haddii aan ku horeeyo jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda federaalka ah wada hadalkan u dhaxeeya waxa weeyaan wali waxaad moodaa in uu luusan yahay dariiqii sax ahaa oo la marayo qardajeex dad ummadda Soomaaliyeed ay haysataa israacooda ama kala go'oodi waxa uu ku xidhan yahay marka ay u noqdaan dhaqankii aynu lahayn ee golaha ama geedka waxa weeyaan markaa haddii la garnaqsado oo la isku garaabo waxa dhici lahayd in ama la kala go'o ama la midoobo laakiin inta dibad wareegga la yahay inta Mareykan iyo midowga Yurub shirar ay iyagu soo curiyeen la tegayo inta la leeyahay shirkan anigu waxba kama ogi ee Mareykan baa wata ama midowga Yurub baa wata wax guulaha uu dhalinaya ma jiro waxa weeyaan 30 sano oo dambe oo rafaad oo aan lana kala go'aynin la isna raacayn ayaynu wali ayaa dhabadeedii aynu wali agtahaynaa waxaan markaa ku talinayaa oo aan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed war ama aynu kala go'no ama aynu israacno maalinta gole iyo la iskugu yimaado iyo geed ee aynu dhaqankeenni aynu ku noqonno ee aynu saxaafad iska xidhno ee aynu madow iyo cadaanba iska saarno maalintaasaynu ama kala goy ama israaci madaxweynaha Djibouti mid baan leeyahay madaxweynaha Djibouti waxaan leeyahay Ismaaciil Cumar Geelow maalintii dhaweey ee khalaanqalku ka dhacay Djibouti annagu haddaanu nahay shacabka ilaahay ku abuuray Somaliland tala sax waanu dhiibanay adiga iyo shacabkaagaba miidiyaha Somaliland oo dhan waxa ka baxay tala nafteex u ah shacabka Djibouti iyo dawladda Djibouti aad madaxda ka tahay waxa weeyaan adigu maalintii tan iyo maalintaad Soomaali gogol u dhigtay 20 sano laga joogo shirkii artaad gogasha dhigtay waxa weeyaan way ku eeday Soomaali 1960 waxaanu ahayn laba gobol oo isku yimi ama laba waxaad ka dhigtay 4.5 waxaad samaysay qabyaalad halkii ugu xumeyd baad gaarsiisay Soomaali ciise iyo baad walaalaysay oo aad wax wada siisay iyo biyamaal oo yaala Kismaayo ayaa tiri 4.5 oo aad wax wada siisay wixii aad u dhigtay waad garanaysaa maanta qodaxda Soomaali aad ku muday wali waa taa ku mudan way ku eeday maalinta maantana gogashii labaad baad dhigtay waxaan anagu aan u aragnaa in dawladda Soomaaliyeed markii ay dhacday inaad inta dabarka iskaga taagtay dabanaadku ku guud cabayso Cabdiraxmaan Abdullaahi Xasan telefishinka caalamiga Soomaaliya magaalada Burco